Dallada horumarinta gobolka Awdal oo fulinaysa barnaamijka Afuri Walaalka ayaa waxa ay masaajida ku taala deegaanada kala duwan ee hoostaga degmada Dila gaarsiiyeen timir ay ugu tala galeen inay ku afuriyaan dadka jooga masaajidadaasi. Mas'uuliyiinta Dallada horumarinta gobolka Awdal oo ay horkacayaan gudoomiyaha Dallada horumarinta gobolka Awdal Mustafa Cumar Suldaan iyo gudoomiye ku-xigeenka Dalladaasi Mahdi Ibrahim Wacays oo ay weheliyaan xubno ka mid ah mas'uuliyiinta Dallada horumarinta gobolka Awdal oo iskugu jira qurbajoog iyo qolqoljoog ayaa waxa ay timirtaasi gaarsiiyeen masaajida ku taala deegaanada Tulli, Jaara Horoto, Dharaar Waxar, Duudweyne iyo deegaanka Sheekh Nuur, halkaasi oo ay timirta ku wareejiyeen imaamyada masaajida kala duwan ee ku taala deegaanadaasi. Mas'uuliyiinta Dallada horumarinta gobolka Awdal oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay midmid uga warbixiyeen timirta ay ku wareejiyeen masaajida kala duwan ee ku taala deegaanada kala duwan ee hoostaga degmada Dila, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta halkan aanu joognaa waxa weeye Tulli waa magaaladii duuga ahayd waxaan halkan ka salaamayaa horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ka dhahay dhalinyarta rag iyo dumarba ee ku bahoobay Dallada horumarinta gobolka Awdal. walaalayaal halkaad ka soo saarteen waxaad tulkiina soo dirteen iyo walaalihiina islaamka ah yaadiyo ilaahay nin walba muraadku uu la niyooday oo aan macsida ilaahay ku jirin Allah ka aqbalo. dhammaantayabana halkan alaabtii aad soo dirteen waanu iska gudoonnay qaybtii ugu horeysayna halka kan Tulli ayaana laga gudoomay oo odagii Tulli baa nagala hadhaya. salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. maanta oo ay bisha Ramadaan tahay 5 waxaan halkan u nimidnay tuuladan Tulli in aan siino oo ku wareejino timirtii afturka oo ay soo direen walaalaheena dibadaha kala jooga meelo badan kala jooga. marka waxaan leenahay anagu jazakallahu khayr waxaan ku wareejinaynaa Cabdi oo ah naga qabanaya timirta walaalaheen ma sha Allah waxaan oo keeneen waa naga aqbalay masaajidkii insha Allah taala ilaahna subhanahu wa taala ha dambi dhaafo walidadoodii insha Allah dadka u soo niyooday u niyooday insha Allah taala dambi dhaaf iyo darajad Allah ku siiyo waliba jamiic muslimiin Allah shaafiyo wixii xanuunsanaya emerson Allah shaafiyo walaalaha soo diray ilaahay ka jaalsiiyo waxaan u ducaynaa qoladii soo dirtay Dallada horumarinta gobolka Awdal. joognaa deegaankii Jaara Horoto waana maxadadii labaad ee aanu nimaadno oo hadda waxaanu ka nimid Tulli. programkii aad awalba caadada u lahaydeen aad furin jirteen dadka sooman aad wadi jirteen weeye kanu waxaanu idin leenahay walaalayaal waad mahadsantihiin halkaad ka soo saarteen wax ka weyn oo ka sii ballaadhanna Allah idin kaliyo. maanta waxaan joognaa deegaanka Jaara Horoto magaalada Jaara Horoto ee quruxda badan leh. alxamdulillah ilaahay baa noo waafajiyay sidii caadada ahayd Ramadaan walba keeni jirnay timirtii afurka ee masaajida deegaanada aan u qaybinaynay ayaan wadnaa. waxaa halkan jooga qurbajoogtii gudidii Dallada horumarinta gobolka Awdal iyo gudidii kale ee Dallada horumarinta gobolka Awdal ee qolqoljoogtii dhammaan halkan aan ku dhannahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin masaajida badan baan qaybinaynaa. hadda masaajidkii labaad baan soconaa ee Jaara Horoto Tulli baan kaga soo bilownay saasaan socon doonaa. masaajid way badan yihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan doonaynaa markaa insha Allah raxmaan in aan u ducayno walaalaheeni Dallada horumarinta gobolka Awdal ka mid ahaa ee soo diray sadaqaadkaas oo mar walba inuu caadaystay caado wanaagsan oo ah inay sadaqaadkaas soo diraan oo ay gaarsiiyaan bulshada u baahan culimada masaajida iyo dadka inay ku afuraan. alxamdulillah ilaahay waxaan uga baryaynaa in miisaanka xasanaadka ugu daro intii soo dirtay intii ka howlgashay soo qaaday iyo dadkii khayrka badnaa ee deegaanadaan ugu nimid ee naga gudoomayba ilaahay waxaan baryaynaa inuu ilaahay raxmaanka u laban laabo xasanaadkooda. hadda waxaan joognaa magaalada Jaara Horoto taasoo aan wadno timirtii Afuri Walaalka oo aan ku wareejinayno imaamka masaajidka Jaara Horoto Xaashi waxaan ku wareejinaynaa Dallada horumarinta gobolka Awdal waxay ku wareejinaysaa timirtii Afuri Walaalka. waxaan ka doonaynaa inaad nagala wareegto timirtaas. kala wareegaynaa waan idinku mahadnaqaynaa inaan kala wareegno. waxaan joognaa Dharaar Waxar oo aan qaybinayno timirtii Afuri Walaalka ay ugu tala galeen Dallada horumarinta gobolka Awdal walaalahooga degan deegaankan
waxaan markaa ku wareejinaynaa timirta haddii ilaahay yidhaahdo maamulka masaajidka sheekh sacad baa naga guddoon timirta haddii ilaahay yidhaahdo. alaabtii aad walaalahay noo soo dirteen waa idinka guddoonnay. dharaar waxar baanu hadda joognaa oo maxadaddii saddexaad aanu soo marno. sheekh sacad oo imaamka masaajidka ayaa naga guddoomay 10 kartoon oo timir ah oo ay noo keeneen marinta gobolka Awdal waan ka guddoonnay. haddana timirtii waa tan taala ilaahay baan ugu mahadnaqnaa intii soo bixisana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan qaybinaynaa timirtii ay soo direen walaalaha dalada horumarinta gobolka Awdal. waa joognaa meeshii saddexaad baan joognaa. waxaan ka soo bilownay Tulli, waxaan soo marnay Jaaraarto, haddana Dharar Waxar ayaan joognaa. markaa waxaan uga guddoomay maamulka masaajidka Dharar Waxar. waxaan leenahay walaalaha soo diray miisaanka xasanaadka Allah inagu daro. qof kasta oo ka qayb qaatay kuwa lacagta bixiyay iyo kuwa socodka ku soo diray iyo kuwa baabuurta ku qaaday dhammaantoodba miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال maanta waxaan soo booqanay masaajidda ku yaala deegaankan area dile argagaarkeedoo dhan. marka hadda waxaan joognaa masaajidkii afraad, masaajidka deegaanka Duudweyne ku yaala. waa deegaan aad u ballaaran oo qurux badan inkastoo lagu jiro waqti jiilaal oo abaara. annaga oo ah guddidii dalada horumarinta gobolka Awdal dal iyo dibadba halkan maanta timirtii afuri walaalkaa qaybinayna. waxaan halkan ugu horreyn uga ducaynaynaa walaalihii qiimaha iyo sharafta iyo karaamada badnaa ee sadaqaadkan la soo baxay. ilaaha raxmaanka waxaan weydiinaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro oo ilaahay uu ka aqbalo. kuwii kale ee soo qaaday ee annagu aan ka mid ahayn nimanka walaalaheena ee kalena soo raacay aqoon-yahaniinta deegaanka oo iyaguna nagala qayb qaadanayna soo raacay sida professor Bakaal oo kale. dhammaan ilaaha raxmaanka waxaan rajaynayaa in miisaanka xasanaadka ugu daro. mar walba waxaan u heeganahay u diyaarnahay haddaan nahay daladii horumarinta gobolka Awdal inaanu ka qayb qaadano waxyaalaha khayriga ee barnaamijka horumarinta ee walaalaha qurba jooggu had iyo jeer ay ku soo caawinayaan dadkooda. insha allahu raxmaan waan sii wadaynaa waana sii joogtaynaynaa. waxaan rajaynaynaa dadka degaankuna inay ka faa'iidaystaan waxyaalaha loo dhisay ee hadday tahay madaariis, hadday tahay iskuulla, mashaariicda waan sii ballaadhin doonaa. sadaqaadka waxaan u farayaa dadka qurba joogta iyo dadka kale ee qolqol joogta ee ilaahay waxsiiyey inay walaalooda u naxaan oo ay ka qayb qaataan oo ay sadaqaadka ballaadhiyaan oo especially dadka qolqol joogta ee waxaysatay ilaahay u nimceeyey in sadaqaadka ay ka bixiyaan oo sakada ka bixiyaan si deegaanada loogu horumariyo ay kaga soo qayb qaataan. iminka halkan aanu joognaa waa markaskii afraad ee aanu soo marno, masaajidkii afraad aanu soo marno Duudweyne. kulaylka iyo biyo la'aanta ka taagan malayn ma karamaysaan runtii. ilaahay baa horta raxmaadkan ka sugaynaa. laakiin iminka beelaha kale iyo dadyooga kale waxbay nagu dhaamaan. dee booyado biyo ayaa meelaha qaarkood laga geeyaa inkastoo inagu biyaha aanay naga fogeyn. laakiin booyado haddii aynu dadaallo insha allahu oo dee jiilaalku sida inoogu sii dheeraado waxaynu ku dadaalayna in booyado geyno insha allah. ilaahay halkaad ka soo saarteen wax ka badan ha idiin geliyo. ilaahay waxaad ula niyooteen ee sadaqada bisha ramadaan ah ee wax waliba ay 10 laabka iyo 20 laabka yihiin allah idinka aqbalo. allah idinka aqbalo. beesheenana waxaad ugu soo ducaysaan halkan aynu ka ducaynaa ilaahay raxmaad khayr badan oo dadka qaboojiya, xoolaha qaboojiya, dhulka qaboojiya oo cadceedda imika aanu taaganahay naga qaboojiya ilaahay noo keeno. haddana waxaan rabnaa inaan ku wareejino imaamkii masaajidka Mustafa Faarax ayaan ku wareejinaynaa timirtii aan bixin jirnay markasta oo rabadaanta oo ahayd walaalka afuri. sheekh ayaan ku wareejinaynaa. sheekh naga guddoon. aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa qurba joogta dibaddana. goor kasta waxaan leenahay kama dheregsanin wax kastoo ummadiina iyo dadkiina u qabataan oo tartaan oo aad soo qabataan waan inigu mahadnaqanaa. sidaa dadaalka aad gasheenna in ilaahay wax khayr qaba inugu bedelo awlaadiina ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa. sidaa iyo si ka fiican ayaan insha allah caadi aan rajaynaynaa inaan isku ogaano. waanan inigu ognahay waxaad qabanaysaan walaa qurba joogta walaa ururka dalada ka socda gobolka Awdal. aad baan ugu mahadnaqanaa 100% waan isku mahadsantihiin saad maanta noo soo guddoonsiiseen timirta walaalkaa kuwa afturi. hadda waxaan joognaa goobtii shanaad oo ah Sheekh Nuur oo aan dhigayno muxuu ahaa timirtii afuri walaalkaa
oo ay soo direen guddiga horumarinta gobolka awdal waxaanan imika ku wareejin doonaa haddii allahu yidhaahdo muxuu ahaa sheekha jooga tuuladan sheekh nuur. waxaan joognaa goobtii shanaad ee qaybinta maanta aan ka qaybinayna timirtii ay soo dirtay dalladda horumarinta gobolka awdal oo ahaa barnaamijkii afuri walaalka waana qaybtii maanta ugu dambeysay halkan la yidhaahdo sheekh nuur waxaa iyadu dhiman qaybta labaad oo ah waqooyiga fog ruqiya wixii ka shisheeyo iyadana aanu berrita iyo wixii ka dambeeya aan loo amba bixi doono haddii ilaaha yidhaahdo marka goobtani waa goobtii shanaad sidaan horeba xusay waxaan ka bilownay tulli jaaraa horoto dharaaro xarba duud weyne iyo halkan oo ah sheekh nuur halkii ugu dambeysay maanta goobtii shanaad halkaa waxaa ku qaybsamay 70 xabo haddii ilaaha yidhaahdo wixii dhimanna waxaa la geyn doonaa goobaha waqooyiga ee fog waana hawl aad iyo aad muhiim ah oo masaajidda deegaanka loo qaybiyo taasi oo maanta ka bilownay tulli jaara horoto dharawaxar duudweyne iyo masaajidkii sheekh nuur hadda masaajidkii shanaada sida uu mahdi sheegay gudoomiye ku-xigeenka dalladda waxaan wadnay 70 xabo timira 70kii timirtaan u qaybinay baa markaa halkan ay tahay meeshii noogu dambeysay maanta insha allahu tacaala markaa haddana waxaan ku reejin doonaa masaajidka imaamka iyo cidda ay joogto masaajidkaan ku reejin doonaa marka qaybta inoo dhimanna insha allahu tacaala waa loo diri doonaa ruqi qardhiile iyo meelahaasaa loo diri doonaa sidaa darteeda markaasi waxaan leenahay walaalaha muxsiniinta ah ee soo bixiyey miisaanka xasanaadka allah inagu daro annagaa guddidii dalladda horumarinta gobolka awdal qolqoljoog iyo qurbajoogba leh alxamdulilah waxaan geyn doonaa insha allah berrito hore haddii ilaa awoodda raalli ka noqdo xagga iyo waqooyiga qardhiile iyo ruqiyo ayaan timirtooda u rari doonaa si fiican bay noogu dhammaatay deegaanka waxaa ka muuqda abaar xunbaa ka muuqata ilaaha raxmaankan ka weydiisanayna naxariistiisa inuu roobka u soo liso ummaddan oo aada u baahan dad iyo xoolaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay raalli heshiisa aan ku helno walaalihii khayrka badnaa ee dalladda horumarinta gobolka awdal iyo intii kale ka qayb qaadatay ee tabarucaadka ka soo qayb qaadatay barnaamijka afuri walaalkaya waxaan ilaahay uga rajaynayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro way mahadsan yihiin timirtiina wala noo keenay ilaahay kiina socda iyo ka keenay iyo ka soo diray iyo ka jooga iyo ka baabuurka wata iyo ka socda ilaahay khayr ah miisaanka xasanaadka Allah ugu daro ilaahay waxaan idin baryaynaa ilaahay idinka jannada firdawsa inuu ilaahayna sii dhammaantiinba ilaahay soonkana ha inaga aqbalo ilaahay kuwii walaalihii maalin ay ka fadli badan tahay ma jirto waxaan idinku soo ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanka Allah inagu daro cabdicasiis cige wararka Boorama News